السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أضيقها صدر الدين channel كان نقدر دعواني سانا وصدر الدين ستايلز. فالله داكو عصب تهي سبسكرايب داهرين اللي جوكتنا كرسي سوق هذا حنباني وضامانته هذا حمسو فريستميشن قد بفر بدن ويبدن يهين لكن ستيل ما بدين دونه marka qodobka ugu hore oo meeshan u soo fariistay waxaan rabaa inaan la hadlo youtuberada Soomaaliyeed arin yar aan ka dhaho gabadheydii hore ama saaxiibadeyda sida u taqaaniinba Queen Hafsa marka waxaan ku hormarayaa horta youtuberada Soomaaliyeed aan rabaa inaan ka hadlo weli khaasatan rag horta anaga Soomaali haddaan nahay mashquulkeena waa iska badan yahay rag waxaan arkayay reaction ma bixinayo laakiin siday u bixinayeen boqolkiiba 98 been lay qasayeen markaad rabtid inaad wax reaction ka bixisid waa inaad dadka la soo xiriirtid oo yacni weydiisid Sadruddin sidoo wax u jira Hafsa sidoo wax u dhaceen markaas anagu waan ka jaahil bixin karnaa laakiin guri dad leey dad iska soo gashid sida rabta kama samaysan kartid marka rag waxaan arkay waxaan ka bilaabaa ragga aniga diyaaradeyda ka hadlayo nin raga oo nin rag wixiisa ka hadlayo hadda baan ma aragnay ragnimadii kolley sanadkan qallooc bay gashay ragga ku mashquulsan diyaaradeyda macna diyaaradaada hadday shaqeynayeen walaalow isbitaalka kugu dhow gaar diyaaradeyda waxba kama qasno meeshay rabtana ku degi maqaayad ku degtaa cirka ku degtaa geed korkiisa ku degtaa wadada ku degtaa diyaaradeyda meeshay rabtay ku degi qof aan fasax ka qaadanayna ma laha taas tan labaad waxaan rabaa inaan ka hadlo ragga ku dhegan iyo dumarka ragga ani igu dhegan iyo dumarka ku dhegan Queen Hafsa horta waa gabar walaashay dad waxaa jiro wixii oo dhan intay bedeleen waxay u bedeleen qabyaalad dad waxaan arkay ninkan waa ogaadeen gabadhan waa saan ninkan kolley wax walbay ahayd dadka dhan ayada iga dhaweyd waqti xaadirkaas Hafsa weli waan wada hadalnaa hadday u dambayso isla hadlayna waa gabar walaashay haduu macnaha xiriirkii socon waayay walaaltinimadii ma dhamaanin dad baa dhahay soo fariiso siday wax u dhaceen yacni nala wadaag aniga waxaan ila wadaagi karaa yacni sidaan isku baranay iyo ayadoo galabkayga joogto wax walbo nolosheena ka dhaco waan ka hadli karaa laakiin ayadoo halkan ka muuqanin inaan sababta kaliftay inaan aniga ayada kala yaacno iyo waxaas inaan ila soo horfariisto taas horta waxaa waaye weligiin waa sugaysiin waxaad alifanaysiin alifta ragga igu dhegan aniga walaalayaalow aan kala xishoono dad maxaan arkay fara badan oo yacni Hafsa TikTok live ahaato ama WhatsApp ahaado waxaan baan arkay dad isku dirdiraayo dadka way isdagaalaan gadaalna way ka heshiiyaan laakiin dadkan oo Hafsa markii aad taageeraynayaan aniga dhankayga u soo marayaan shame on you shame on you, a big shame on you. Marka
gabadhaas laga leexdo. gabadhaas waa gabar walaashii ah, sharafayna leedahay Xafsa. dadka ku dhegan naagaha is aruursadeen oo ayada rabaan inay magac ka dilaan, horta sidaas magac ugama dilayaan, waxay hore usoo shaqaysatay waay. yacni maxaa lagula dagaalaya? walaalay maxaa maskiin u tahay miya? walaalay maxaa magaalada kuugu shidanta miya? I don't know. naago weyn inta meel soo fariistaan ayada ku dhegana ujeeda, marka ka leexda. aniga ayada wanaaguu naga dhexeeyey, stiil wanaagaas wuu naga dhexeeyaa, xiriirka hadduu dhamaado walaaltinimadii jirto. kolley naago badanna waan soo shukaansaday ilaa aan xaajiyadda saxda ka helayana weli waan shukaansan doonaa. wanaagi ee Xafsa i wanaajisay mid aan halkan kusoo koobi karo maaha. hadallada afkeeda ka soo baxeenna kolley xanaaq baa ka keenay. waxay ku hadasha dhan qofka markuu xanaaqsan yahay waxaa waaye wuxuu u aabayeelay ma laha. waa runteed guur iyo waxbay ka hadlaysay. arrintaa guurka ah waa sida ayada sheegtay, laakiin waan ku tala jirnay inaan isguursanno, inkastoo tii ilaahayna meesha ku jirto calaf. laakiin laba qof isku qanacsan waan ahayn. marka weligeeda dad intay guryo isku samaystaan wax walba la dhameeyo la kala boodi jira. haddana dad waxaa jirta intay isguursadaan hal habeen inta isla socdaan maalintii labaad kala boodayaan. marka dadkan oo dhahayaan guriga isla degneedeen xaaraan buu kugula joogay, an guri baan qabaa. guri aan sariirteeda ahayna hurdo iguma qaban jirin, weligeedna hurdo igumay qabanin. laakiin waa qof aan shukaansanayo, meeshuu joogo ilaahu cirkaas may degto waan ugu tagaa, waqti isla qaadanayna ani ayada. ma ahan sariirta ayada ku seexanaysaan video kula duubee sariirtaasaan ku seexanay ma aha. Nairobi waa lis wada yaqaanaa, nin walba meel buu ka soo baxaa, nin walba meel buu ku xaroodaa. so taas waxaa waaye ani waxaan u arkaa inay gabadhaas la dulminayo. yacni haddee horumarte oo horumarkeeda aa rabtiin inaad ka hadlaysiinna kolley taas waa gooni, laakiin inaad meel inta usoo fariisataan waa laga tegay, waa laga sameeyey, intaa laga booday, intaa laga dhacay, that's a lot of nonsense. tan kale aan rabo inaan ka hadlo waxaa waaye, walaalayaalow magacayga si qaldanaad u isticmaalaysin. ani ahaanteeda sida ii hadal hayseen hurdadina way iga tagtay, cuntana ma cunayo, aniga dhanba waxaa iska noqday qolof iska socda. war walaalo markaad iga hadlaysiin maasha allahda raaciya, haddaysan ahayn magacayga iska dhaafo. magacaan magacayga ahaynna maalimahan waxaa arkaya meel walba liigu soo qoraayo ayadoo weliba qosol raacsan yahay. sadurdiin markii liisoo dhaho qosol liima soo raaciyo, laakiin magacaas kale oo ninkaa walaalkay ah Lil Najboy uu ii bixiyey ma diidayo, waa nin adeerkay ah, waa wiil Soomaaliyeed. magacuu rabo ha ii bixiyo waan ku qanacsana. weligii qof aan kula dagaalamo laha maxaa Cabdi Faarax Buluqo iigu wacaysaa, waan ku qancayba magacayga kaas ka qurxsan, Cabdi Faarax Buluqogaas igu wada kaas. sadurdiin qofkii dhow gafaynaa waad ka bilaawata. marka waxaan hadalkayga kusoo koobayaa, walaalayaalow aan kala xishoonno, dad walaalo baan nahay. nambaradeyda waa haysiin, instagramyadeyda waa haysiin, facebookgeyga waa haysiin, war tiktokgeyga waa haysiin. aalad walbo social media la isticmaalo oo aniga aan isticmaalo
Sadruddin styles igu wada qoran ku duwa wada haysiin halkaas igala soo hadla oo wixii jira i weydiiya ma ahane seef labooda noqonina teeda kale markaan isla joognay oo aan isku qanacsaneen waxna soo amaanay ma arki jirin yani ku digin waxaad u fadhideen inaa xumaanteena faafisaan kulli qof walba wuxuu yahay unbuu ahaana xafsana xafsa unbay ahaan anigana Sadruddin baan ahaana wax aad ka beddeli kartiin ilaahay uunta male marka walaalayaalo aan kala xishoono aan iscaafino ani kulli waxba niima qabin haddaad sugaysiina inaan soo fariisto mar kale oo aan ka hadlo ani iyo xafsa sababtaan u kala tagnay iyo waxyaalo noocaas I guess you're wasting your time waad fadhin kartaa waadna sugi kartaa taas waa ani ayada naga dhexaysaa haddaadna alifaysiin waxna dul saaraysiinna waxaa waaye shaqadiina wata weligiina dantaas ku keentiin haddana kala diri jirteen laakiin teenan waatu aniga ayada naga soo go'day inaan wixii naga dhexeeyey aan xirno aan close garayno so intaas ka badan waxaan idin dhahay ma laha wixii like subscribe iyo share waa xaggiina I love you